اعترافka xasradaha xooggan ee hareeyeen ee Somaliland ayaa 3 maalmood jirsaday. Rajaduna uma dhicin sidii ay u durasayeen aqoonsidoonku waxay u muuqataa inay weli Israa'iil kali ku tahay gardaadinta go'aankan ay guhaadka xadbeelka kala kulmayso. In aqoonsiga Tel Aviv albaabka u furo dalal kale oo iyana ayada ixtiraafka Somaliland ayaa si weyn loo naawilay. Saacadaha haatan maalmaha isu bedelayayna weydaartay. Kuwa oo kororkooda iyo kali ahaanta Israa'iil ay soo dhaweynayso cabsida ah inuu aqoonsigu curyaamo. Ma jiro dalil hadda si dhamaysa u taageeray go'aanka Israa'iil ee aqoonsiga Hargeysa. Halka Soomaaliya docdeeda ay helayso xulfooyin goor horeba muujiyay garab istaagooda ka dhanka arrintan. Inkastoo Soomaaliya tan uga faa'iideysanayso cilaaqaadkeeda diblomaasiyadeed ee dunida, haddana waxaa docda kale muuqata in aan Israa'iil dhinaceeda labayn talaabadeedii koowaad ee aqoonsiga. qayb ahaan xogaha ayaa tusay in Israa'iil ku mashquulsan tahay u jawaabidda iyo la dagaalanka dalalka khilaafsan talaabadooda. sida Falastiin oo xalay wasaaradaha arrimaha dibadda ee labada dhinac ay dhex mareen is-afdhaaf quseeya qadiyadan. Israa'iil ayaa Falastiin ugu yeertay in iyadoo aan dal ahaan loo aqoonsanayn ay khilaaftay aqoonsiga Somaliland. halka wasaaradda dibadda Falastiin tan uga jawaabtay muuqtusaya dalalka wadan ahaan u aqoonsan Falastiin. Inkastoo Israa'iil loogu yeero mid ahaan isku xirayaasha diblomaasiyadda dunida ama xubin ka mid ah brokeriska ugu waaweyn adduunka, haddana inaysan weli gole keenin dalal kale oo ku raaca aqoonsiga Somaliland. waxay tustay cabsida ah in ixtiraafkan iyo MOU-gii badda ee Itoobiya isu ekaadaan. Talaabooyinka la dorosayo in Israa'iil qaado maalmaha iyo asbuucyada dhow waxaa ka mid ah kulanka loo ballansan yahay ee golaha ammaanka qaramada midoobay ee Soomaaliya ku difaacan doonto qadiyadda midnimada, ka oo nidaamka Israa'iil sheegay inuu isna ku difaaci doono go'aankiisa aqoonsiga. kulanka Trump iyo Netanyahu ee isla maantadan ka dhacaya Mar-a-Laagada gobolka Florida ayaa sidoo kale lagu wadaa in qayb ahaan qodobadu noqdaan ku qancinta Trump ee go'aankan. walow shalay uu Trump sheegay inuu dhab uga fiirsan doono isla goortaana darsi doono tallaabada Tel Aviv ku ixtiraaftay Somaliland. ugu dambeyn, madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa isla goortan la hadlaya golayaasha qaran ee baarlamaanka dalka, kuwa oo fadhi aan caadi ahayn ka yeelanaya qadiyadan.